waayahay caways wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal jaalayaal meel kasta dunida aad ka joogtaan Soomaali weyn waa idin salaameynaa waa warbaahinta madaxa bannaan channelka madaxa bannaan Freemason ku soo dhawaada subscribe iyo share wadna siin kartaan si aad noogu caawisaan inaan anaguna dadaal badan muujino idinkoo mahadsan inta kadib waxaan soo dhacay war hadda sheegaya inay geeriyootay hooyada dhashay madaxweynaha waddanka Turkiga ama ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga mudane Erdogan Rajab Tayyip Erdogan baa la yiraahdaa ninkaas ayaa hooyadii geeriyootay waxa baroordiiq badan iyo tacsi dunida dacaladeeda uga soo diray hogaamiyayaal badan oo caalami ah kuwa ay saaxiib ka yihiin xagga xogaga NATO waddanka Turkiga uu ka mid yahay iyo kuwa islaamka iyo kuwa kale oo bariga fog ah Rajab Tayyip Erdogan ayaa isaguna maanta gaadhay magaalada Malibo hospitaalka ku yaala halkaas oo ay hooyadii ku geeriyootay waxa iyadoo uu horena u joogay halkaas hore u joogay maanta ma gaadhin hore u joogay waxa arinta ugu yaabka badan noqotay in hospitaalka hortiisa ay taagnaayeen dad ka badan 400 oo qof oo Soomaaliyeed BBC-da ayaa si jees iyo ciyaar ah u soo qaadatay warbixintooda iyadoo oo su'aalaha ay dadka weydiiyay ka mid tahay maxaa ka lifeena timaadaan halkan iyagoo ku jawaabay waxa geeriyootay hooyadii ummadda Soomaaliyeed waxa geeriyootay hooyadii ummadda muslimiinta ah waxa geeriyootay hooyadii boqortooyada dalka Turkiga iyo hooyadii hogaamiyaha dawladaha ama ummadda islaamka muslimka ah ee waqtigan jooga arintaas waxay aad uga careysiisay wadamada khaliijka carabta kuwaas oo dagaal xoogan oo dhan walba leh kula jira waddanka Turkiga iyo hogaamiyahaas mudane Rajab Tayyip Erdogan isaga ayaa la filayaa mar dhow inuu miidyada ka hadlo waxa kale oo baroordiiqda iyo salaama iyo tacsida aad uga qayb qaatay dadka Turkiga wadaadada culimada iyo cid kasta oo daneynaysi ama saaxiib la ahayd waddanka Turkiga iyo madaxweynahooda annaguna waanu baroordiiqaynaa waanu tacsiyeynaynaa waddanka Sacuudiga ayaa isagu arintaasi aan wax jawaab ka soo saarin oo u muujiyay inaanu cadaawad isagu u muujiyay halka Imaaraadku ku raacay iyo dawladaha ay hoos tagay iyaga ka hoos yimaada bedelkooda halka waxa qaadatay oo si yaab leh arinta uga hadashay oo waxa loogu yeedho ilmada iyo xaaska maadaama muslimku kala jabay ka faa'iideystay dawladda Israel iyo waddanka Iran oo isaguna muslim ah laakiin shiica arintaas bedelkeedii Sacuudiga iyo khaliijka waxa Sacuudiga iyo Imaaraadka wadamada khaliijka la isku yiraahdo bedelkoodii Turkiga waxa uu galay yuhuudda iyo shiicada taana waxaanu oran karnaa waxa kalifay wiilashan khamiisyada dhaadheer ee carabta khaliijka la isku yiraahdo dawladda Qatar ayaa la sheegay inay berito madaxdeedu u ababixi doonaan magaaladaas markaas loogu soo tacsiin doono madaxweynaha hogaamiyaha islaamka waddankan waqtigan wixii warbixino intaas ka soo kordha waanu idin soo socodsiin doonaa marnaba ha ka fogaanin channelkayaga waanu idin salaameynaa Soomaali weyn meel kasta aad joogtaan fi amaanillah